السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ الصوماليدا حقوقالنimo u badan waa buugga uu qoray jaamac maxamed qaalib allaha u naxariistay. Jeneraal jaamac maxamed qaalib taliyihii hore ee booliska Soomaaliya iyo sidoo kale taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya xukuumadihii rayidka ahaa ka hor intii aanay talada dalka la wareegin ciidamadii xoogga dalku. waa xagal kale oo aynu buuggaasi taariikhda Soomaalida xaqooqaalnimo u badan ka soo qaadanayno ee uu qoray allaha u naxariistay Jeneraal jaamac maxamed qaalib. bogga 177 waxa ku xardhan chapter kamida chapterada buuggaasi oo uu ciwaan uga dhigay sirdoon iyo amni qaran Soomaaliyeed oo kaga hadlayo aasaaskii iyo hawlgalladii ugu horeeyay ee sirdoonka Soomaaliya. waxaanu ku bilaabayaa sida tan: hay-adii sirdoonka iyo amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Intelligence and Security, waxaa laga dhaxlay kuwii la midka ahaa ee dalka ka jiray gobonimadii iyo Israaciil ka hor ee xukunkii gumaysigii Ingiriiska dhinacii waqooyi ee Somaliland iyo maamulkii Talyaaniga ee xornimo gaadhsiinta UN Trusteeship ee koonfurta Soomaaliya ee qaramada midoobay ka wakiilka ahayd. sirdoonkii iyo amnigii labadii dhinacba waqooyi iyo koonfur waxay ka tirsanaan jireen ciidankii baarlamaan booliska oo maamul iyo hogaaminba hoos iman jiray taliyayaashii baarlamaan booliska. waqooyi haddaan eegno, hay-adii sirdoonka waxaa loo yaqaanay qaybta gaarka ah special branch ee baarlamaan booliska. dhinaca koonfurtana waxaa loo yaqaanay xafiiska gaarka ah officio speciale. xukuumadii daakhiliga ee koonfurta Soomaaliya waxa ay ciidankii baarlamaan booliska kala wareegtay maamulkii Talyaaniga sanadkii 1958. labadaas hay-adood ee kor ku sheegan oo la isku daray gobonimadii iyo Israaciil kadib ayaa noqday sirdoonkii iyo amnigii qaranka Soomaaliyeed. waa intii u dhaxaysay 1960 ilaa 1969 oo ah ka hor xukunkii askarta. markii buu yidhi Jeneraal jaamac maxamed qaalib la igu magacaabay madaxii sirdoonkii iyo amnigii qaranka National Intelligence Security bishii shanaad ee May 1962. tababaro mid baarlamaan boolis iyo sirdoon ayaan u aaday England aniga oo aan wali hawshii xafiiskaas la wareegin. waxa aan dalka ku soo noqday 10 bilood kadib bilowgii bishii saddexaad March 1963 oo bilowgii xilkaygii cusbaan la kowsaday Soomaaliya oo dhowr bari kadib xiriirkii diblomaasiyadeed u goysay Ingiriiska March 12 1963. madaxii hay-adaasi waxa uu toos ula xiriiri jiray wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga oo waagayagii ahaa Maxamuud Cabdinuur ee dawladii Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Cabdulqaadir Maxamed Aadan Soobe ee dawladii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. xafiiskii sirdoonka iyo amniga qaranka Soomaaliya warar badan baa soo gaari jiray muddadii aan ka madaxda ahaa. war kasta oo ku saabsanna siyaasad arrimaha gudaha qoraal lagama gudbin jirin haddii aanay markaas amniga waxyeelaynin. waxaan si qaarkood af ahaan la socodsiin jiray wasiirkii arrimaha gudaha. sidaas oo kale wasiiradiina waxba lagama qori jirin. mar keli ah oo wasiirkii koobaad Cabdirasaaq Xaaji Xuseen codsaday maahe mar wasiir lagu xukumay in uu qandaraas siiyey nin ay isku qoys ahaayeen. xantiina waa la soo hubiyey. dhacdooyin muhiim ahaa ayaan halkan ku eegayaa buu jaamac maxamed qaalib allah u naxariistay. wanaag iyo xumaanba wixii ay lahayd hay-adaasi waxaana ka mid ahaa: 1. amniga xafiisyada dawladda. kadib markii aan xilkaygii la wareegay waxa aan si aan la dareemi karin u soo kormeeray xafiisyadii wasaaradaha qaarkood kuwii deganaa xaruntii dawladda. waxa aan arkay in amnigii xaruntu aad u dayacnaa, dadweynuhuna isdhaafayeen xarunta dhexdeeda, kuwa soo gelayay iyo kuwa baxayeyba oo aan cidina wax weydiinaynin. xaggee bay ka yimaadeen aan la is odhanaynin, ayayse u socdaan iyo wixii lamida toona. kuwo kalena shax ama jar ayaaba iskaga hoos ciyaarayeen dhirtii xarunta dhexdeeda ku taalay hoosteeda. waxa iyana sidaas oo kale aad u dayacnaa qoraaladii qaranka official documents ee xafiisyadaas. soo dhoweyntii wasaaradihii waxaa miisaska korkooda daadsanaa qoraallo qarsoodi ku shaabadaysnaayeen. qoraaladaas badankoodu ma mudnayn in qarsoodi lagu shaabadeeyo, marse haddii qarsoodi lagu shaabadeeyey ma ahayn in ay meelahaas yaalaan. waxa aan isku dayey in aan kala hadlo agaasimayaashii guud ee wasaaradihii oo waagaas loo yaqaanay Cabo Departamento sidii loo sixi lahaa amni darradii ka jirtay xafiisyada wasaaradahooda. ayaan darro saraakiishaas aan la xidhiidhay waxba kama ay soo qaadin. waabay ka xanaaqeen in aan ku soo qaaday arrintaasi ee wax ka sheegayay wixii ka jiray xafiisyadii wasaaradahooda. kuwii kale in aan la hadlo waan ka gaabsaday. arrintii waxa aan la socodsiiyey buu yidhi Jeneraal jaamac maxamed qaalib madaxii xafiisyada wasiirkii koobaad Dr. Axmed Shire Lawaaxe oo ahaa wadani fiican. waxqabadkii hawlaha qarankana aad ugu firfircoonaa. waxa uu weydiiyey wixii kale ee aan qaban karayay mar haddii aan faham
iyo taageero ka waayey madaxdii wasaaradaha. waxa aan ku idhi malaha aqoon darro ayaa jirta waxa habboon in aanu u tababarno qaar ka mid ahaa shaqaalahooda wasaarad kasta hal ama laba qof. isla maalintii labaadba doctor Lawaaxe wasiirkii koowaad wuxuu soo saaray wareegto ka soo baxday xafiisyada wasiirkii koowaad uu ku amray wasaaradihii oo dhan in mid waliba uu soo dirsado xafiiskii sirdoonkii iyo amniga qaranka qof ama laba shaqaale ah oo loogu tababaro amniga qoraalada. waanay soo wada direen. waxaanu kala talinay oo keli ah wixii amniga qoraalada qaranku u baahnaayeen, sida qoraaladeebaa u baahan dhowrsanaan, classification, qarsoodi, sir ama sir culus. qoraaladii dhowrsanaa waa in aan isku meel lagula kaydin qoraaladii caadiga ahaa oo lagu kaydiyo qol u gaar ah, loona xil saaro hal qof oo keli ah oo loo xulay. markii qoraaladii dhowrsanaa shaqo looga baahdo, cidda keli ah ee geli kartay qolkii lagu kaydiyey qoraalada dhowrsanaa waa agaasimaha guud ee wasaaradda iyo sarkaalkii amniga qoraalada loo tababaray, iyo in amniga guud ee soo gelitaanka dadweynaha ee wasaaradihii la nidaamiyo oo iridaha wasaaradaha la dhigo ilaalo hubisa cid kasta oo soo gelaysay kuwa ay ahaayeen iyo cidda ay u socdaanba iyo wixii lamida. dadaalkaas oo dhan faa'iido lagama gaadhin oo agaasimayaashii guud ma hirgelinin talooyinkii aanu siinay ilaa xafiiskii wasiirkii koowaad agtiisa maalin lagu dilay madaxii arrimihii shaqaalaha dowladda, Director of Personnel and Establishment, Dr. Cismaan Cumar Sheego, 10kii subaxnimo. markaas kadib wasaaradihii waxa ay dareemeen amni darradii jirtay. wasaaradihii oo dhan waxa laga howlgeliyey ilaalo joogto ahayd. qof kasta oo gelayay wasaaradihiina aan ilaaladuse garanaynin waa la joojin jiray, lana weydiin jiray su'aalo aqoonsi iyo cidda ay u socdaan iyo wixii lamida. xaruntii ay dowladdu deganayd, xafiisyada wasiirkii koowaad iyo 4 wasaaradood oo kale waxaa la dejiyey ilaalo baarlamaan boolis 24 saacadood oo joogto ah. iridii xarunta dhinaceedana waxaa laga dhisay rug ilaalo. wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga ee waagaas mudane Cabdulqaadir Maxamed Aadan Soobe waxa uu soo saaray qoraal nidaam cusub oo amni in aan xarunta la soo geli karin, lana dhigi karin baabuur aan ahayn kuwii wasiirada iyo kuwa safiiro u imanayay wasiirada. mudane baarlamaan oo aan weligii dhinac u leexo lagu odhanin ayaa baabuurkiisii ku yimid iridii xaruntii dowladda oo rabay in uu gudaha ku galo. birtii baa laga qaadi waayey oo madaxii ilaaladii baarlamaan booliska ahaa ayaa tusay qoraalkii amarkii wasiirka amniga ka soo baxay. inta uu akhriyay xildhibaankii warqadii ayuu baabuurkiisii ku sii gooyey iridii xaruntii dowladda si aan baabuurna u soo gelin mid kalena uga bixin. kadibna lug ayuu ku galay gudihii wasaaradda. madaxii ilaalada baarlamaan booliska degdeg buu ugu tegey wasiirkii amniga Cabdulqaadir Maxamed Aadan Soobe oo nasiib wanaag markaas xafiiskiisa joogay, una sheegay wixii dhacay. Soobe waa soo daadegay oo indhihiisa ayuu ku arkay baabuurkii mudanihii oo iridii xaruntii dowladda gooyey. wuxuu yidhi dubbaha la ii keeno. degdeg baa loogu keenay dubbihii. markaas buu labadii dariishadood waa muraayadihii ee baabuurkaasi ayuu ka jajabiyey wasiirku. kadibna waxa uu ku amray in baabuurkaas iridda laga riixo. mudanihii markii uu soo baxay oo baabuurkiisii meeshii uu kaga tegey ku arki waayey ayaa la tusay meeshii la geeyey. wuu u tegey oo waxa uu arkay in labadii daaqadoodba laga burburiyey, waxaana loo sheegay in wasiirkii sidaas sameeyey. mudanihii baa u tegey afhayeenkii baarlamanka oo ku hanjabay in uu wasiirka waa Soobe uu dili doono. afhayeenkii baa shir degdeg ah isugu yeedhay, kana soo qayb galeen wasiirkii koowaad Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga Cabdulqaadir Maxamed Aadan Soobe, labadooduba Allah u naxariistee. kadib markii mudanihii baabuurka lahaa wax tabashadiisii sheegtay oo uu eedeeyey Cabdulqaadir Soobe, ayaa wasiir Soobena hadalkii qaatay oo yidhi anigu amniga ayaan mas-uul ka ahay. waxaa loo baahnaa in aan furo iridda xarunta dowladda oo mudanuhu baabuurkiisii ku gooyey. ii sheega wax kale oo ii bannaana in aan sameeyo oo aan samayn kariyey, kagana maarmi kariyey tallaabadaas aan qaaday. waa la iswada eegay. arrintii waxa ay ku dhammaatay in mudanihii eedii la saaro. wasiiradiina waxaa laga codsaday in ay baabuurkii u sameeyaan, waana yeeleen sidaas. arrintaasi waxa ay soo afjartay amni darradii waagaas ka jirtay xaruntii iyo xafiisyadii kale ee dowladdaba. qodobka labaad, booqashadii uu ku yimid Soomaaliya Zhou Enlai, wasiirkii koowaad ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha 2 ilaa 4 February 1964 oo markaas ay Shiinaha aad isugu xumaayeen Ruushka iyo dowladihii qarbiga Faransiiska ma aha oo badbaadadiisu xil culus ahayd. si wanaagsan bayse noogu dhamaatay. amniga iyo socodkii marti sharafka Zhou Enlai aniga ayaa mas-uul ka ahaa. waxaa hawl maalmeedkii maalintii labaad ugu horreeyey kulan labada dowladood yeelanayeen oo bilaabmayay 8 subaxnimo. ka hor baan soo kormeeray xafiisyada wasiirka koowaad si aan u hubiyo in dhinacii dowladda Soomaalidu diyaar yahay ka hor inta aan loo dhaqaajin marti sharafta. waxa aan arkay xogayihii wasiirka koowaad oo garaacaya telefoonadii wasiiradii oo daahsanaa iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo cadhaysnaa oo Cabdilaahi Ciise wasiirkii arrimaha dibaddu kalidiis wasaaradii kala joogay. waxa aan ku idhi
dib baan u yar dhigayaa imaatinka martida ee kulanka. haye buu cabdirashiid iigu jawaabay, imana weydiinin ilaa goorma oo aniga isu xil saaray marka la keeni karayey. habeenkii labaad ee joogitaankii Joe Ilnay ayuu Cabdirashiid Cali Sharmaarke marti sharaftii casho sharaf ugu sameeyey hotel Juba oo safiiradii shisheeye oo dalalkoodu Shiinaha xidhiidh la lahaayeen oo dhammi ka soo qayb galeen. qarbiyiintii waxaa ka soo qayb galay safiirkii Faransiiska u fadhiyay Soomaaliya oo waagaas reer galbeedka oo keli ah. Faransiiska ayaa xidhiidh kala lahaa diblomaasiyadeed Shiinaha. gabagabadii cashadii buu Joe Ilnay oo Cabdirashiidna la socday ku soo wareegay ka qaybgalayaashii isagoo ku salaamayay qof walba koobkiisii cabitaanka ugu jiray. Soomaali walbana ku yidhi shifo. waxaa bogaadin mudan qofkii Soomaaliyeed oo shifo ugu turjumay toos oo ah ereyga af Soomaali sidaas ugu habboon iyada oo weliba aan af Soomaaligu waagaas qornayn. kadib markii booqashadii si fiican ku dhammaatay maalintii saddexaad oo diyaaradii Joe Ilnay ka duushay madaarka Muqdisho ayuu Cabdirashiid igu soo leexday oo gacan qaaday. shaqo toos ah oo aan la yeesho Cabdirashiid Cali Sharmaarke taas ayaa iigu horreysay iiguna dambeysay ayuu yidhi allah u naxariistee Jaamac Maxamed Qaalib, qoraaga buugga taariikhda Soomaalida xogogaalnimo u badan. qoraaga oo arrintan ka sii hadlaya waxa uu yidhi shaqada kale ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke mar ii diray laakiin ahayd fariin ii soo martay taliyahaygii boolis baarlamanka Generaal Maxamed Abshir waxay ahayd in waagii doorashooyinkii 1964 socdeen la soo baaro in wasiiro meelaha qaarkood baabuur dawladeed ugu shaqaysanayeen ololahoodii doorasho. hase yeeshee waxa aan xiriir toos ah la lahaa madaxii xafiiskii wasiirka koobaad Chief the Cabinet Dr. Axmed Shire Lawaaxe allahu naxariiste. qodobka labaad markuu intaa kaga gudbay waxa uu gudbay qodobka saddexaad ee taariikhda Soomaalida sirdoonka iyo amniga qaranka Soomaaliyeed. waxaanu yidhi qoraagu howlwadeenadii sirdoonka iyo amniga qaranka oo aan madax u ahaa qaarkood baa dadaalkoodii marmar dhibaato gaadhsiin jiray nidaamka dawladeed. waxaa mar dhacday in diblomaasi safaaradii xabashida ugu qaybsanaa sirdoonka magaciisuna ahaa Tawalde gabadh Soomaaliyeed oo uu xidhiidh la lahaa ku dacweysay in uu farasaaray malaha inta ku hinaasay. waxaa subax lagu waabariistay sawirro gabadhii iyo Tawalde oo ku soo baxay wargeys la odhan jiray Leunion midnimo cadadkiisii maalintaas. gabadhu sida sawirkeedii ka muuqday sariir cisbitaal bay jiiftay, jidhkeedana badankiisu waa qaawanaa. waxay u ekayd in sawir X-ray ah laga qaadayay meelihii ay sheegtay in ay wax ka gaadheen. haddiiba ay riwaayaddu run ahayd waxa sawirkeedu dhinac yaalay kii Tawalde, qoraalkii wargeyskuna waxa uu ahaa cabashadii gabadha. sawirka diblomaasiga waxa si xalaal ah looga heli karay oo kali ah Tawalde qudhiisa oo diblomaasiga ah. safiiradii xabashida iyo wasiiradii arrimaha dibadda oo diblomaasiyiintu dhigi jireen sawirradooda saddexdaas midkoodna sawirka diblomaasiga ma siiyeen wargeyska. ciddii kale oo sawirkaas qarsoodi ku heli karaysay waxay noqon karayeen gabadha iyo howlwadeenadii sirdoonka iyo amniga qaranka Soomaaliyeed una dhaweyd in kuwa dambe wargeyska siiyeen sawirka diblomaasiga oo riwaayaduba ahayd mid howlwadeenadaasu abaabuleen oo aan run ahayn si diblomaasigaas loo ceebeyn karayay oo keliya. lagana yaabay in ay gabadhana iyagu ku cadaadiyeen in ay diblomaasiga dacweyso iyaga oo aan garanayn waxyeelada ka dhalan karaysay dadaalkoodii, iyaga oo aan anigana wax ila socodsiinin. arrintaasi waxay ahayd wax ku xun xidhiidhka dawliga ah. waxaase ka sii darraan karaysay in xabashiduna sidaas oo kale ku samayn karayeen diblomaasiyiintaydii Addis Ababa joogay. mase samaynin xabashidu waxa argoosi ah inkasta oo aanu u dignay diblomaasiyiintaydii dhacdadaas kadib in ay feejignaadaan. Tawalde markiiba waa la qaaday, waxaase lagu bedelay mid asagii ka aqoon badnaa kana sarreeyey oo safaaradii xabashida ka noqday ninkii labaad. uma dhowaan jirin gabdhihii Soomaaliyeed oo ma aamini jirin. wuxuu la saaxiibay gabadh Talyaani ah oo cisbitaalka Digfeer kalkaalisa caafimaadka ahayd. markii aanu ka yaabnay dhaqdhaqaaqiisii baan go'aansaday in aanu tallaalno xaruntii telefoonadii safaaradii xabashida. qodobka saddexaad markuu intaasii kaga gudbay wuxuu u gudbayaa qodobka afraad. qoraagu waxaanu yidhi waxaa markaas la furay xarun cusub oo telefoonno casri ah automatic telephone center oo ay noo dhiseen suuqii barwaaqa sooranka Yurub. laba farsamo yaqaan oo reer waqooyi ah ayaa lagu soo tababaray oo midkood Muqdisho ka howlgalay kii kalena Hargeysa. kii Muqdisho ka howlgalay Cabdi Haybe oo aanu aad isu naqaanay ayaan la xidhiidhay oo u sheegay waxa aan rabay. wuxuu ii sheegay in ay sahal ahayd oo la fulin kariyay. wuxuuse igu xidhay in madaxdiisii midkood asaga ku amro in uu ila qabto waxa aan rabay. waxaan ku idhi waa hagaag. waxaanan kala ballamay in aan cid kale oo shaqaalihii isgaadhsiinta ka mid ah arrintaasi aanu ogaanin. nasiib wanaag wasiirkii isgaadhsiintu waxa uu ahaa Maxamuud Cabdinuur oo aan si gaar ah ula shaqayn jiray markii uu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha. xafiiskiisii baan ugu tegey
waxa aan u sheegay in aan rabo in aan tallaalo telefoonadii safaaraddii xabashida. wasiirkii wuu ka naxay markii aan tallaal telefoon idhi, hase yeeshee waxa uu ahaa nin waddani ah oo dalkiisa aad daacad ugu ahaa, oo waa ii garaabay igana oggolaaday codsigaygii. kadib markii aan u sheegay baahida qaran ee jirtay, wuxuuse igala dardaaramay oo aniga igu aaminay in aan la tallaalin telefoonadii siyaasiyiintii Soomaaliyeed. waxaan ka ballan qaaday arrintaasi inaanay dhicin, mana dhicin in intii aan anigu madaxda ka ahaa sirdoonkii iyo amniga qaranka la tallaalo telefoonada siyaasiyiinta Soomaaliyeed. dhaqso ayuu wasiirkii ku amray Cabdi Haybe in uu ila qabto wixii aan uga baahdo. markiiba waa la tallaalay xaruntii switchboardka telefoonadii safaaraddii xabashida. waxaan isku dayey in aan la tallaalin khadadka gaarka ah sida ka safiirka oo kale, anigoo oo ogaa in safiirku marti uu yahay madaxweynaha. safiirku wuxuu lahaa 4 telefoon, 2 xafiiska ah iyo 2 guriga ah, oo 2 toos ugu xidhnaayeen xaruntii telefoonada ee qaranka, 2 kalena soo mariyeen xaruntii telefoonada safaaradda. 2 hore uunbaa la badbaadin karayay. tallaalkii waxaa lagu ogaaday 7 ciidamadii ka tirsanaa, 3 ahaayeen sirdoonka iyo amniga qaranka, 4 kalena ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo mid ka tirsanaa shaqaalihii wasaaradda arrimaha dibadda iyo gabadh rayid ahayd. dhammaantood 7 xubnood waxaa la ogaaday in ay la shaqaynayeen safaaraddii xabashida. dhammaantood waa la qabqabtay oo muddo ayay xidhnaayeen, waase la iska sii daayey maxkamadayn la'aan, oo annaga ayaan diyaar u ahayn in la kashifo tallaalkii telefoonada. 7 ciidamada ka tirsanaa iyo kii shaqaalihii wasaaradda arrimaha dibadda waa la wada eriyey xaq la'aan. gabadhii rayidka ahayd waxaa beri dambe guursaday nin siyaasi ahaa oo mar wasiir ka noqday xukunkii askarta. 5 qodobka 4 marka uu intaa kaga soo gudbay qoraaga Allah u naxariistay Jaamac Maxamed Qaalib, waxa uu gudbayay qodobka 5 ee qaybtan. waxaanu yidhi xafiiskii sirdoonka iyo amniga qaranku waxa uu lahaan jiray oo aan ugu imid dhowr mooto. howlwadeennadii sirdoonka ayaa ku socon jiray markii buuq ka dhex kaco labada dowladood Soomaaliya iyo xabashida ayaa lagu dabageli jiray diblomaasiyiintii hoose ee safaaraddii xabashida si aan qarsoodi ahayn. howlgalkaas oo kale ma lahayn qiimo sirdoon, waxaana lahjada sirdoonka intelligence jargon loo yaqaanay gubis ama panning. waxaa waagaas jiri jiray Muqdisho dhexdeeda dhowr meelood oo ay ka mid ahaayeen Bar Fiat, Hotel Croc del Zod iyo wixii lamida, oo kooxo Soomaaliyeed qaar ka mid ah ku caweyn jireen, kuna kaftami jireen, waxna ku xaman jireen, kuwaas oo hadeer loo yaqaano fadhi ku dirir. howlwadeennadii sirdoonku dad badan ayay ku lahaayeen, ugana soo warrami jiray had iyo jeer wixii laga wada hadlay halkaasi. aniga naftayduna nin aan aqaanay oo ka mid ahaa kuwii ka qaybgeli jiray fadhi ku diriradaas midkood baan marmar ku soo beegi jiray markii baararku xidhmi jireen habeen barkii, oo ninkaasi aan isnaqaanay aan geyn jiray gurigiisa, weydiini jiray wixii la lahaa. habeen kadib markii aanu dhammaysanay iswaraysigii fadhi ku dirirkii baa ninkii yidhi, adduunyayba mootooyinkii baarlamaan boolisku maanta ma Cabdirashiid bay daba socdaan. layaab bay igu noqotay wixii ninku sheegayey. waxay ka dhacday meesha aan ka madaxda ahaa mana ogeyn, waan ka aamusay. isagiina waxa uu malaha u gartay in ay sir ii ahayd oo uu iska aamusay. habeenkii hurdadii ayaa ii iman weyday oo waa igu dheeraaday. habeenkii waan gami kari waayey. waxaa maskaxdaydii ku wareegayay su'aal ahayd, ma dhabbaa sidee bayse u dhici kartay mootooyinkii xabashida lagu raadcayn jiray oo dadweynuhu wada ogaa in la yidhaahdo waxa ay dabagalaan wasiirkii koowaad ee dalka ee shalayto. subaxdii dambe baan goor hore xafiiskii tegey oo dadkii kale oo dhan ka hormaray. waxaan ilaaladii xafiiska ku idhi, ha ii yimaado sarkaar hebel oo ahaa madaxii howlgalka dabagalka. markii uu soo galo wuu ii yimid. waxaan weydiiyey, ma dhabbaa mootooyinka aan haysanaa in ay Cabdirashiid Cali Sharmaarke daba socdaan? wuxuu igu jawaabay, caadadaas sidaas ahaan jirtay, taas oo macnaheedu ahaa ciddii dowladda ku mucaarid ahba waa la dabagelayaa. waxa aan ku idhi, caado kuma aan weydiine, iiga jawaab su-aashaas aan ku weydiiyey. waxa uu yidhi, haa. waxaan weydiiyey, yaa amray? mar labaad buu iigu jawaabay, caadada ayaa sidaas ahaan jirtay. markaas baan inta aan cadhooday ku qayriyey oo ku idhi, mar dambe caadaha ii sheegine, waxa aan ku weydiiyey iiga jawaab. markaas buu yidhi, anigaa amray. waxaan ku idhi, aniga ma igala tashatay? markaas buu gefkiisii xasuustay oo inta uu istaagay digtoono u qaatay, kadibna iska calaacalay, igana codsaday in aan ka raali noqdo, isaga oo weli marmar weedhiisii ku dhex barxayey in caadadaasu sidaas ahaan jirtay. aad baan u canaantay oo ku idhi, haddii mootooyinkii xabashida lagu dabageli jiray oo dadka oo dhammi arki jiray aad u quudhay in lagu dabagalo wasiirkii koowaad ee dalka ee shalay, waxaad garanaysaaba ma jiraan. waxa aan ku amray in uu joojiyo, ka dambena aanay dib dambaysa u dhicin arrintaasi. waxa kale oo aan ku idhi, haddii cid kale kugu amartayna u sheeg in aan anigu joojiyey. oo waxa aan ka sheekiyey in madaxdii sare ee wada koonfureedka ahayd qaarkood baarlamaan boolis iyo wasiirraba inta ay aniga igala xishoodeen ay isaga ku yidhaahdeen sidaas same. kama uu jawaabin in cid kale ku amartay iyo in kale toona.
taas oo shakigayga sii kordhisay. waxaan isweydiiyey ninkii cabdirashiid mootooyinkii daba dhigay sow kuwa lugaynayaba ma daba dhigi karayo. cabdirashiid tiisii bay noqotay in laascaanood lagu dilo ee muqdishoba si sahlan ayaa loogu dili karayay. waxa uu lahaan jiray dhaqdhaqaaq maalmeed joogto ah, rootiin oo amniga u daran. abbaare 10 subaxnimo waxa uu tegi jiray baar liido oo badda ku yaalay oo uu buug ku akhrisan jiray. markii duhur la eedaamana uu ka soo tegi jiray. salaada maqrib kadib ayuu gurigiisa ka soo bixi jiray oo sinimo ayuu geli jiray. 8 ilaa 8 iyo barka fiidnimo uu ka soo bixi jiray oo uu tegi jiray makhaayadii hotel Shabeelle korkiisa oo cabbaar ku nasan jiray. 9 ilaa 9 iyo barka ayuu ka tegi jiray oo sinimo kale ayuu geli jiray ilaa habeen barka kadibna uu hoyan jiray. waqtiga uu cabdirashiid iman jiray makhaayadii hotel Shabeelle korkiisa ayaan ku soo beegmi jiray oo digtoono ku salaami jiray. dhaqsana uga tegi jiray aniga oo aan la hadlin, kana durki jiray oo meel kale fadhiisan jiray si haddii uu kii daba dhigo kuwa lugaynaya ay uga cararaan marka ay aniga igu arkaan cabdirashiid agtiisa. dhowr habeen markii aan sidaas sameeyey ayaan isweydiiyey in cabdirashiid moodi karayay in aan aniguba isaga daba dhigtay ama daba socdo. markaas baan iska daayey oo is idhi dadaal intaas ka badan ilaah uunbaa samayn kara. muddo yar kadib sirdoonkii waa la iga bedelay oo waxaa dib la iigu celiyey howlihii baarlamaan booliska caadiga ahaa oo waqooyi ayaan ku noqday sida ku sheegan qaybta dambe ee buuggan. sanad kadib doorashadii madaxweynenimadii cabdirashiid baa ku guulaystay. wasiirkii koowaadna u magacaabay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo isla markiiba la heshiiyey Kenya oo safaarado labadii dal isdhaafsaday. aniga oo Hargeysa ka shaqaynayay ayaan fasaxa qaatay oo aan tegay Kenya, Arusha oo Tanzania ah iyo Kampala oo Uganda ah. markaasna saddexdaas dal baa iigu horreysay. soo noqodkaygii aan Muqdisho imid iyada oo maalmo yari na iiga harsanaayeen fasaxaygii ayaa waxa ay helay wasiiradii cusbaa ee dowladda cabdirashiid qaarkood oo igu yidhi sirdoonkii baa lagugu celinayaa oo madaxweynaha ayaa sidaas raba. cabdirashiid maalmahaas ayuu doonayay inuu u safro Kenya oo madaxweyne Jomo Kenyatta uu ku martiqaaday. wasiiradii waxa ay kale oo ii sheegeen oo igu yidhaahdeen in ay madaxweynaha u sheegi doonaan joogitaankaygii Muqdisho kadibna aan u raaci doono Nairobi oo aan markaas ka soo noqday. ma aan jeclayn in go'aan aniga isaameeya ka soo baxo siyaasiyiin iyada oo aan go'aankaasi ii soo marin taliyahaygii baarlamaan booliska. subaxdii dambaba waxaan ku noqday Hargeysa si aan wasiiradiiba aanan isku arkin. wasiirro kale oo waqooyiga soo booqday ayaa iyaguna sidii oo kale iigu warramay in madaxweynuhu doonayo in sirdoonka la igu celiyo. wasiiradaas aqoon isuma aanan lahayn oo wax kastaba kalamaanaan sheekaysan karaynin. nasiib wanaag weli go'aan kama soo bixin madaxweynihii intii sheekadaasi socotay. nasiib wanaag kale waxaa isaguna Hargeysa booqasho ku yimid wasiir maxamuud cabdinuur, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha oo aan si toos ah ula shaqayn jiray oo aanu aad isu baranay. isaguna sidii wasiiradii kale ayuu igu yidhi in sirdoonkii la igu celinayo in la hadal hayay. waxa aan weydiiyey in uu maqlay in mootooyinkii xafiiskaas mar cabdirashiid lagu dabagalay markii uu mucaaridka ahaa. wuxuu ii sheegay in aanu maqlin. markaas baan uga sheekeeyey wixii dhacay oo dhan iyo waxa aan ka qabtayba. waxa aan kale oo u sheegay in aan madaxdii dowladdii hore midkoodna i weydiinin waxa aan sameeyey. waxa aan ku daray hadalkii cabdirashiid waxaa ku jira cabdirasaaq oo mucaarid ahaa. haddii meesha la igu celiyana waxa aan siin doonaa ixtiraam kii aan siin jiray cabdirashiid mid la mid ah. waxaan weydiiyey in madaxdan dambe sidaas ka raali noqon doonaan iyo in kale. wuxuuna igu yidhi u malayn maayo. waxa caadi ahayd in wasiir kasta oo hawl qaran u safra marka uu Muqdisho ku soo noqdo madaxweynaha uu booqdo safarkiisiina uga warramo briefing. waxaan maxamuud cabdinuur ka codsaday in marka uu madaxweynaha arko u sheego in aan maqlay in madaxweynuhu ila rabo in sirdoonkii la igu celiyo, aniga oo ku mahadinaya kalsoonida madaxweynuhu igu qabay. haddana ma aanan jeclayn in aan meeshaas ku noqdo. waxa aan diidanaa in aniga iyo taliyahaygii baarlamaan boolis oo aad iigu kalsoonaa shakina kala dhex galo. markii fariinteedii gaadhay cabdirashiid waxa uu amray in kii mootooyinka daba dhigay loo dhiibo madaxtinimadii sirdoonka iyo amniga qaranka. taas baa muujisay in aan cabdirashiid dareeminba in mootooyinkii daba galeen iyo waxa aan ka qabtay toona. kali ahaan waxaanu cabdirashiid siyaasiyan aaminsanayn sarkaalkii aniga la igu bedelay oo markaas sirdoonkii iyo amnigii qaranka ka madax ahaa. halkaas saaxiibayaal haynoo joogto qaybtaas kale oo qoraagu kaga hadlayay aasaaskii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee xukuumaddii rayidka ahayd. waa buugga taariikhda Soomaalida xogogaalnimo u badan iyo qalinka Allah u naxariistay Generaal Jaamac Maxamed Qaalib oo loo yaqaanay Jaamac Yare.